بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسigeennu wuxuu u badan yahay darsi taariikhiya mana fududa. ugu horrayn taariikhda ama dhacdooyinka dunida soo maray iyo isbeddelka dowladaha iyo dadka ku dhaca iyo umamka halaagsamaya iyo umamka soo kacaya, daraasadooda ama taariikhdoodoo laga warramaa waxay keensataa in lagu waayo arko. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka intuu kaga warramay taariikh bini aadam ayuu wuxuu ku gebagabeeyey faactabiruu yaa ulil absaar. wax ku qaata baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa aragtida u saaxiibka ahu. waxaanay keensanaysaa isbeddelkaasi iyo dadkaa halaagsamaya iyo wixii la mida marka laga warramo inay sabab u noqoto dadku adduunka macnayaridiisa inay arkaan oo ka zaahidaan, aakhirana raadiceeyaan. marka aad aragto kuwa shalay boqorra ahaa ama dowlada ahaa ama xoog badnaa ama dunida ka talinayay oo maanta aan waxba ka jirin, marka aad aragto dowlado xoog ahaa iyo dulloobay, marka aad aragto duwal noolaa oo baaba'ay, waxa qudhe soo hadhaya un waa alle subxaanahu wa tacaala. ilaahayna qur-aanka markuu qisadii uxud marka alle ka warramayo waxa uu ku tilmaamay in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mithluh watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waliyaclama allahu aladiina aamanuu wayattakhida minkum shuhadaa wallahu laa yuxibu aldaalimiin. waa maalmo aanu dadka u kala beddelayna baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. intaas waa taariikhda guud ahaan. markaan hoos u dhaadhaco aan imaado qudus ama baytulmaqdis ama iliya ama orshalim ama waxaa doontaba dhehe magacyadaa badan magaaladan leh, sideedaba waddanka shaam la yidhaahdo, shaam waa falastiin iyo suuriya iyo lebnaan iyo urdun iyo inahaasi, waa meelaha ugu qadiimsan dunida ee bini aadam ku noolaan jiray. magaalooyinka ku yaallaana hadday tahay dimashq waxaa lagu tilmaamaa 11 kun oo sannadood meelaha inay jirto. hadday tahay dimashq, hadday tahay xalb, hadday tahay ariixa, hadday tahay yaafa, hadday tahay caka, hadday tahay ghaza, hadday tahay qudus, dhammaantood 5 kun oo sannadood way ka wen yihiin baan filaya. yacni waa magaalooyinkii ugu qadiimsanaa ee dunida la dego. maadaama ay sidaa tahay waxaynu garan karnaa xawaadis badan iyo dhacdooyin badan inay soo mareen. magaalooyinka haddana markaynu qudus ka sii dhex tilmaamno, qudus waa magaalo xadaaraad tiro badan iyo firaq diimeed oo kala gedisan oo tiro badan ay soo mareen. ka warrankeedu markaa ma fududa. qudus magaalada qudus la yidhaahdo qaybteeda qadiimka waxay yidhaahdaan taariikhda hadda la hayo 2,000 kun sane hadda mooyaane 4 kun oo sano ka hor baa la degay bay yidhaha ayaa la dhisay dhismaha hadda meelahaasi ku yaalla. isla markaa haddaynu eegno xawaadistii ka dhici jirtay, maalan ninka la yidhaahdo Eric Klein waa nin maraykana oo historiana taariikhyahana bugaag badan leh, masiixiyaan rajaynayaa. wuxuu leeyahay bug la yidhaahdo Jerusalem Besieged from Ancient Canaan to Modern Israel. buggiisaasi waxyaabuhu ku tilmaamaya cajabta leh waxaa ka mid ah. wuxuu leeyahay magaaladan taariikhdeedii badnayd haddaynu eegno 2 jeer waa la dumiyey, 23 jeerna xisaar waa la go'doomiyey, 52 jeerna waa la weeraray, 44 jeerna waa la qabsaday. yacni qudusta caynkaasi markaa haddaynu isnaa taariikhdeeda ka warran waa taariikh aad u ballaadhan oo aan muxaadaro iyo hal iyo laba iyo saddex toona lagu keeni karin.
لكن waxaan isku dayayaa ما قبل الإسلام inaan ka tago wixii islaamnimada ka horeeyay inaanan waxba ka tilmaamin inaan soo koobo الحضارة الإسلامية intii ay jirtay iyo qudus siday u ekay marka la eego qudus iyo makaanada islaamka ku leedahay waxaynu naqaanaa inay tahay ثاني أقدم مسجد في العالم masaajidkii labaad ee ugu daaweyna dunida ku yaala oo quraanka ilaahay waa keenay ugu tilmaamayay in awwala baytin wadi'a linnaas lalladhi bibakka nabiguna xadiiskiisa waa ku tilmaamaya 40 sano kadib in bayt al-maqdisna la dhisay wa ulul qiblatayn waa qiblada ay muslimiintu u jeesanayeen 17 bilood ilaa iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayaadka fi suurati al-baqara oo aayad wax nasakha aayaadka ugu tiro badan leh quraanka ku yaala waayo waa mas'ala ku adkayd bay yiraahdaan muslimiintu markay madiina joogtay oo ay la noolaayeen dad kale iyana waa qibla kamida qibladii ay muslimiintu u jeesan jirtay hore 17 bilood waa mar saddexaad waa ثالث الحرمين waa xaramkii saddexaad oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamayo salaada lagu tukado masjidi haadana inay kun tahay ka lagu tukado makana inay 100 kun tahay ta lagu tukado masjid al-aqsa inay 500 oo salaadood u dhiganto waa mar kale waxaan leenahay waa masra rasuulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waa meeshii ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabigiisa uu israha iyo mi'raajku meeshu ka dhacay oo ah min mucjizaati nabiy alayhi salaatu wasalaam inuu habeen qura maka ka tago oo uu tago bayt al-maqdis oo ay daliil u noqoto marka mi'raajka iyadoo maka iyo madiina waa 14 maalmood in ku dhadhow kala socday laakiin bayt al-maqdis iyo maka gudaheeda ilaahay uu kaxeeyay habeen gudaheed inta la geeyay in la soo celiyo waa makaanu uruujihi waa meeshii nabiga laga dheelmiyay cirka laga qabadsiiyay waa meeshuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ambiyada ku tukiyay imaamka ugu noqday waa meeshuu nabigu ku tilmaamayo saddex meelood in cibaado loogu safro oo saddexda masaajida waa meel ay deganaan jireen nabiyada in badan quraanku uu ka warramayo adduunya nabi ibraahim nabi luut nabi isxaaq nabi yacquub nabi yuusha nabiyullaahi daawud nabiyullaahi sulaymaan ambiyo badan oo quraanka iyo sunnadu ay ka warramayaan waa meeshay deganaan jireen inta kadib waxaan leenahay waa meeshii koowaad ee jihaad loo waajibiyo wixii ka horeeyay udkhulu al-ard al-muqaddasa ee nabi muuse lagu yiri wixii ka horeeyay ambiyada waxa la fari jiray inay dacwada faafiyaan dadku hadday dhibaan ambiyada u taagwayaana ka baxa baa la oran jiray dabeetana waa la halaagi jiray nabi muuse wixii ka horeeyay quraanku ka warramay ee nabi ahaa dadkii umamkii ka soo horjeeday inta leeyayntii muuminiinta ka baxba intii kale la halaagay waxa la yiraahdaa qisada nabi muuse labada tarafba way ka qayb noqotay qayb qoladii la halaagayay hore way ka qayb noqoto fircoon waqtigiisii waxa la yiri ka bax magaalada markii ay ka baxeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala baddu kala jaxay fircoon iyo kooxdiisii waa la halaagay laakiin haddana iyaga dadkii ugu horeeyay jihaad la faraba la yiri oo dabeetana waxa la yiri udkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum bayt al-maqdis kala waa meeshu furtay markaasi nabi muuse waa kuwii iskaga hadhay ee yidhi halkaan anagu fadhiynaaye idab anta wa rabbuka faqaatila innaha huna qaaciduun xadiidka nabigu waa kaynoo tilmaamaya yuushac ibnu nuun inuu furtay yuushac ibnu nuun nabigii la odhan jiray inuu furtay inta haddaynu soo dhaafno nimaadna cahdigii nabiga calayhi salaatu wassalaam sunnada laba bishaaraa ku soo arooray mid hiraqal baa laga warinaya markii uu nabigu waraaqaa kala diray Heracles ninkii la odhan jiray Romanska oo markaa isagu ka taliya bayt al-maqdis markii loo keenay waraaqdii nabiga waa kii nimankii ka yimi abu sufyaan iyo koox la socotay oo mushrikiin ahaa oo safara interviewga ka qaaday kadibna wuxuu yidhi fa in kaana maa taquulu xaqan waxa aad sheegaysaa hadday dhabtay su'aaluu weydiiyey uu ku hubinayo nebi maxamed nebi mayey mise maaha 13 su'aalood ama 14 su'aalood ayuu weydiiyey oo bukhaari soo aroorinayo su'aalaha kadib
mid walba wuxuu sababtu u weydiinayna wuu sheegay kadib wuxuu yidhi waxa aad ii sheegtay hadduu dhab yahay fasayamliku mawdica qadamaya haatayn halkan aan maanta fadhiyo wuu qabsan doonaa waqad kuntu aclamu annahu khaarijun lam akun adunnu annahu minkum waan ogaa in nebi ilaahay soo dirayo wakhtigiisii uu joogo maan se filin inuu idinka soo baxayo falow aclamu annii akhlusu ilayhi latajashamtu liqaa'ah walow kuntu cindahu lagasaltu can qadami wuxuu markaa tilmaamayaa meeshuu joogo inuu qabsan doono waa saadaashii heraklis nebiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariya ibna maaja iyo axmedba warinayaan ee maalik cawf ibnu maalik ayaa wuxuu yidhi nebigaan u imi calayhi salaatu wasalaam ghaswatu tabuuk waa dagaaladii ugu dambeeyey uu nebigu galay mid ka mid ah dagaalkii tabuuk waa romaniska dagaaladii lagu soo qaadayay markaas baan u imi buu yidhi isagoo taambuug yar ama qubbo yar oo ka samaysan harag ku jira dabeetana wuxuu nebigu igu yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ucdud sittan bayna yadayi saaca lix tiri buu yidhi aniga qiyaamaha hortii lix shay oo calaamaadka qiyaamaha ka mid ah tirsa buu ku yidhi lixda shay wuxuu nebigu ugu horraysiiyey mawti geeridayda inuu nebi maxamed geeriyoon doono calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xigsiiyey nebigu uma fatxu bayt ilmaqdis buu yidhi aniga waa geeriyoonayaa kadib baa la furan doonaa bayt ilmaqdis afar shay oo kale oo geeri badan inay dhici doonto oo ay mufasiriin ama muxadisiintu ku tilmaamaan طاعونكii camwaas amiinu haadi lumma abu cubayde iyo raggii la midka ahaa ku dhinteen markii ay furteen magaalada kadib inuu yahay xooluhu inay badan doonaan fitna inay dhici doonto guri kastoo carbeed geli doonta hudna inay dhici doonto calaa kulli xaal xadiidka maxalu shaahidka inaynu uga soconnaa waxa weeyaan fatxu bayt ilmaqdis in la furan doono bayt ilmaqdis nebigaasii sheegay calayhi salaatu wasalaam goorma la furtay bayt ilmaqdis abibakar markuu nebiga dabadiye calayhi salaatu wasalaam uu qabtay khilaafadii islaamiga ahayd waxaa bilaabmay asxaabu ridda sanadkii hore qoladaasu ku mashquulsanaa sanad labaadkiisii wuxuu bilaabay inuu weerar geliyo labadii dowladood ee dunida ugu waaweynaa ee ahaa bershiya iyo romanis labadaba in dagaal lagu qaado ciraaq iyo shaam labadaaba mar qura in dagaal lagu wada qaado ciidamuu kala diray ay hogaaminayaan saxaabo tiro badan leh khaalid ibnu saciid yaziid ibnu abi sufyaan shuraxbiil ibnu xasna abu cubayd ibnu aljaraax camar ibnu alcaas raggaasi ciidamay hogaaminayaan buu kala diray wakhtigaa waxaa dhacay baa la yidhaahdaa kadib macraka weyn oo loo yaqaano macrakatu ajnaadiin macrakatu ajnaadiin waxay ka dhacday magaaladan hadda la yidhaahdo khaliil ku taalla israa'il meelahan ay hadda haysata ah dhinaceeday ka dhacday meel u dhow romaniski iyo muslimiinta isgalay jumaadul ula 7labaatankeedii 13kii hijiriyada ayay muslimiintu guulaysteen macraka labaad baa ku xigtay oo tii yarmuuk nahru yarmuuk ka dhacday waa goolan agteeda iyana muslimiintu waa guulaysteen hazaa'imtaasi markii ay ku dhacday kadib oo halkaa ay muslimiintu marayaan ayuu cumar qabsaday abibakar dhintay cumar baa dowladdii islaamiga ahayd qabtay cumar wuxuu beddelay maamulkii askarta abaa cubayda ibnuuljaraax buu isugu dhiibay ciidamadii shaam oo dhan yarmuuk laga soo bilaabana khaalid ibnu waliid baa haystay khaalid buu ka casilay khaalidna waxaa laga dhigaa askar ka mid ah askar ee askarta muslimiinta ka mid ah wakhtigaa waxay muslimiintu joogaan falastiin inteeda badan gacantay ku hayaan marka laga reebo baa la yidhaahdaa magaalo yaroo qaysariya la yidhaahdo oo xeebta ku taalla oo iyada romaniska madad badan ka heli jirtay ghaza meeshan hadda la isku dilayo camar ibnu caas baa markaa furtay intaa kadib muslimiintu waxay bilaabeen abu cubayda markii ciidanka loo wada dhiibay abu cubayda markuu dimashq furtay ayaa ciidamadiisii ka soo dhaqaaqeen waxaa la yimi bayt ilmaqdis waxaa la geliyey go'doomin
muddo xisaar markii ay ku jireen ayay waxay dalbadeen heshiis in lala galo nimankii meesha ku jiray heshiiskii bay muslimiintu ka aqbaleen waxay kaloo heshiiskooda ka mid oo ay dalbadeen caqdiga cidda noo saxeexaysay aanu furaha ku wareejinaynaa waa inuu noqdaa cumar bin alkhataab oo amiiruulmu'miniin oo madiina jooga ayay dalbadeen nimankii baytulmaqdis joogay inuu noqdo cidda furaha lagu wareejinaya abaa cubayda war buu u soo diray cumar isagoo arrinkii u sheegaya cumar saxaabuu la tashaday cuhmaan uu ka mid yahay cali uu ka mid yahay cuhmaan ra'yiguu soo jeediyey ah nimanka gaaleed ma aha inay muslimiinta sidaa ugu kibraan ee ha aqbalin ha u tegine ha la weeraro calina ra'yi buu soo jeediyey odhanaya muslimiintu in badan bay dagaal ku jireen waxa u dhib yar inaad tagto furaha lagu siiyo halkay dagaalka geli lahaayeen cumar wuxuu qaatay ra'yigii cali dabeetana wuxuu aqbalay inuu baxo waa soo baxay wuxuu soo aaday meeshii la odhan jiray baytulmaqdis ciidamadii muslimiinta raggii hoggaaminayay baa ka hor yimi cumar oo isaga iyo ghulaamkiisii wiil u shaqaynaya ayaa awr midkoodba mar fuulaya cumar wuxuu yidhi marna anaa fuulaya oo adaa kaxaynaya marna adaa fuulaya oo anigaa kaxaynaya marna awrkaynu nasinaynaa buu yidhi 3 qaybood baynu u qaybinaynaa dabeetana waxa ay ku soo baxeen cumar oo meel dhooba a maraya oo labadii kabood suxulka gashaday oo wiilkiina saaran yahay awrka cumarna hoggaaminayo abaa cubayda bnuuljaraax baa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin niman madaxdooda waaweyneeyeynu u tegaynaa caynkano waxay ila fiicnaan lahayd yacni inaad sidan yeelin low hayruka qaala xadiidkii xaakim warinayay waa maalintuu cumar leeyahy waxaan jeclaan lahaa adiga midaan ahayn inuu warkaasi ku hadlo annagu dad baanu nahay islaamnimada ilaahay ku ciseeyey wax kale haddaannu sharaf ka raadinno ilaahay waa na dullaynayaa buu leeyahy yacnii maryo la cadcadaysta iyo kaba la xidha iyo waxaasi wax weyn aniga ima aha buu cumar tilmaamaya inaan muslim oo diin haysto ayaa warka rasmiga sidii buu ku socday sidii buu ku tegey baytulmaqdis baytulmaqdis waxaa la kulmay bay dhahaan batriikii ninkii kiniisadda u weynaa taarikhyahanadu wax badan bay qoraan markay masaladaa ka warramayaan ninkaasi iyo suu cumar ula kulmay iyo waxay rabeen inay sameeyaan cumar u diiday baabkaa waa iska dhaafaynaa wuxuu yidhi waxaan kugu casuumaya inaad kiniisadda aan ku soo tuso cumar baa raacay kiniisaddii baa la galay kiniisadda isagoo ku jira cumar ayaa wakhtigii salaaddu u soo galay ayna usalli buu ku yidhi waan xaggaan ku tukadaa wadaadkii kiniisadda haystay wuxuu yidhi makaanak halkaaga iskaga tuka buu yidhi cumar wuxuu yidhi haddaan halkan ku tukado berritay muslimku odhan doonaan waa meeshii cumar ku tukado waa lagaa qaadi doonaaye waan ka baxayaa dabaddaan ku tukanayaa cumar wuxuu diiday inuu ninkii yidhi kiniisadda ku tukado waayo wuxuu leeyahay amiiruulmu'miniinkaygii baa halkan ku tukaday baa lagu odhan doonaa oo barraa laydinka qaadi doonaaye wuxuu ku tukaday meel bay yidhaahdaan dhagax la tuur in dhagax la tuuro in leeg u jirta ayuu ku tukaday halkii hadda masaajid baa ka dhisanoo masjidu cumar baa la yidhaahdaa 3 masjid baa ku yaalla meeshoo 3daba masjidu cumar loo bixiyey kaasaa ka mid ahaa markaa cumar markii uu salaaddiisi iyo wixii dhammaystu ninkii wuxuu ku yidhi qiska ahaa wadaadkii meesha haystay waarmee masaajidkii ambiyadu dabeetana waxay u tilmaameen meel masbale ah meel kudaafadda lagu daadiyo xashiishka qashinka ay yidhaahdeen halkaasuu ahaa culamaa'i taariikh waxay yidhaahdaan meesha nimanka haystay waa kristan yuhuudna waxay u arkayeen inay ilaahoodii u dileen col bay wakhtigaa la ahaayeen dabeetana meeshanna yuhuud bay qiblo u ahayd yuhuudna way eriyeenoo saareen qibladoodana aan xumayna bay yidhaahdeenoo kudaafad bay ka dhigteen marka kudaafad bay ahaan jirtay cumar meye buu yidhi oo halkaas baa la yidhi meeshaa kudaafaddaa weeyaan kudaafaddii buu guray cumar saxaabadiina waa la gurtay meeshii buu nadiifiyey masaajid yar buu ka dhisay masaajidkii baa lagu tukaday masaajidkaas ayuu meeshaa ka dhisay cumar
goorma la furtay ama sanadkee bay ahayd taariikhyahanada muslimiintii taariikho kala gedisan bay tilmaamaan maalan qaar waxay leeyihiin waa rabiicul awal baa la furtay magaalada tabarina wuxuu soo naqlinayaa rabiicul aakhir bay ahayd imaamu tabari iyo ibn aljawsi iyo ibnu kathiir waxay ku tirinayaan xawaadistii sanadkii 15 ee hijriyada dhacday inay ka mid ahayd furashada magaaladaasi imaamu dahabi wuxuu ku tirinayaa xawaadistii sanadkii 16 dhacday inay ka mid tahay qowlka dahabi qowl la midana wuu soo naqliyay imaamu tabari sida caankee dadku ay sheegaanna waa sida balaadari uu ku sheegay kitaabkiisa oo ah inay sanadkii 17 ay ahayd mahma takun saddexdaa qowlba waa jiraan 15 bay ahayd 16 bay ahayd 17 hijriyada ahayd intaba kutubu taariikh waad ugu tagaysaa cahdi buu cumar iyo nimankaasi ay kala qorteen cahdigaasi wuxuu u qoraa baa la yidhi sida tan ilaa hadda way taallaa waraaqdii alcahdi alcumari كنيسة القيامة ويتالله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم ورلير كان وحي عمر أمير المؤمنين إيون من كا إيلياء أما بيت المقدس دقناي كالقرتين أمانها وإن نبتقلية سيئي بيوري نفتودا إيا مال كودا إيا كنيسة دودا إيا السليب كودا إيا بكان كودا إيا عافمات قب كودا إيا الدين تودا وحكستو أي طهيبا إنا سيدودا وقدايو وحكالو أمان كامدها لا تسكن كنائهم ولا تهدم أمان كان يسيدو حقوق بدنا سيستم كاملها هذا يرادان حقوق بني آدم كالو غرا وراغدني ويتالله أن لا تسكن كنائسهم ولا تهدم كنيسدهودا إنان لغنا دغين أو لغا قادين لنا دمنين ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم wax ay leeyihiin nimankaas inaan laga qaadin buu u qoray xoolahooda inaan laga qaadin buu u qoray diintooda inaan qasab laga saaray ama cidna lagu qasbin buu u qoray waxa kamid ah wuxuu qoray walaa yudarra ahad minhum qof iyaga kamid ah wuxooda haysta inaan wax dhiba loo geysanin عهدك وحا كمدها مسألة إيجو كؤت كاين الضلبدين مسألة سمحيتي ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود عمر طلب كي كدل بدنا وأقبله وحا كمدها مقالة بيت المقدس اللي يدهدو يهودي كما أركي كرنوا يدهدي بيت المقدس رومانسكا كساري أو كريستانها دبيتنا وحكو سوى عليه بيرشيانيسكا اللي بقول يا أفريا لا تنكي ميلهاسي مسافرية طبنكي 10 sannadood wax ku dhadhowbay joogeen kadib baa haddana romanisku dib uga saareen ama Heracles uu dib uga saaray cahdiga waxaa ka mid ahaa uu ay markaa nasaari taagnay nasaaro wax kale qaadatay baynu ka warrami doonaaye inaan meesha la degin oo yahuudi aanay la degin dhanka kale intaasi waa intii iyaga la siiyey dhanka kale waxaa la yidhaahdeen anaguna waxaan ogollay inaanu jizya bixinno كو عمر وحو كلو كشرطي رومانسكي توكتنا هنا ماشي كسارتان مركا رومانسكا وحيا هي اللصوص توكتين مقالة لغا سارو عدي ربطا إني مقالة كغورتو إن لو قلادا نفي مال يحولبا ينو لبي حكارو دادك بيرليدا عدي ربطا إني اسكتك تنوال لو قولي عدي بيرتو دا هيساني ساو جزية بحين هيسانا ينوال لو قولي جزية دوا 10 مدحات كوني حولها عشوران لكن مسلمين تو ضد كانوا دلنين مدحودا العشوري لكن مسلمين تزكى لقى قادي حقوق بيلهايين إن لا إلاليه وأي أمان كودي الدولة لماذا كوهوس جرا دولة لماذا تكسكا مكاين بحيان بيه وحو عمر مركايلي بيرلي دون ميشو دوي هيسان كرتا جزيون بالغا قاديا ولي بجزية دو حلقا قاديا مركا أي بيرتو وقو قرا sidaas bay muslimiintu ku qabsadeen meesha la yiraahdo Bayt al-Maqdis qarnigii koowaad ee hijriyada 15keeda ama 16keeda ama 17keeda ka tiraadaba masaajid yarbu Umar meesha ka dhisay masaajidka meeshu ka dhisay Imaam Ahmed xadiidka warinayo Ka'b al-Ahbar ayu Umar wuxuu ku yidhi ayna turaan usalli halkay kuugu muuqataa inaan ku tukano
dabeetana wuxuu yidhi aniga waxay ila tahay si qibladeennii iyo sakhradii meeshan hadda ay yuhuudda u ahayd ee qibladu wuxuuba ay xagga inooga wada xigaan dhabarkeeda aan ka soo tukanna buu yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi daahayta alyahuud weli kacb axbaar waa nin yahuudi oo muslima yacni waxaad wixii yuhuuddaad weli wadataa buu leeyay yuhuuddii baad u ekaatay cumar wuu diiday dabeetana wuxuu yidhi halkii nebigu ku tukadaan ku tukanaya horteeduu ku tukaday oo markaa waxa weeye qibladii yuhuudduna xagga dambey ka xigtaa xagga kacbaduna xagga horey ka soo xigtaa xaggaas buu salaaddii ku tukaday sida xadiidkaasi imaamu axmed uu warinayo ibnu kathiir iyo axmed shaakir iyo ay leeyihiin waa xadiid saxiixa inkastoo qoladan musnadka taxqiiqisay ay daciifinayaan sababtuna waa nin ku jirta baa laysku hayaa ma daciif baa mise maaha ragga badhna daciifiyeen badhna xoojiyeen cumar meesha uu ku tukaday oo masaajidkii ugu koowaad laga dhisay markaa kuwii hore waa dumeen cumar baa bilaabay masaajid yaroo sarab oo cariisha buu ka dhisay mucaawiya xilligiisii yaro ballaadhiyey masaajid cariishuu weli ahaa dawla umawiya markay ay jirtay wakhti cabdilmalik ibnu marwaan xilligiisii iyo inankiisii alwaliid ibnu cabdilmalik labadaa nin ayaa qubaddan iyo masaajidkan iyo waxaan dambe oo dhan dhisay weliba waxaa la yidhaahdaa cabdilmalik ibnu marwaan masaajidkan dhisistiisa wuxuu bilaabay markii laga qabsaday xarameynkii kale cabdillaahi ibnu zubayr markii uu qabsaday maxaa la yidhaahdaa xijaas oo dhan iyo ciraaq iyo dhulkaas oo dhan markuu qabsaday khilaafadiisii ayuu wuxuu bilaabay xajka dadka yimaada inuu bayco ka qaado wuxuu ka cabsaday bay yidhaahdeen reer shaam hadday xaj tagaan in iyagana uu bayco ka qaado ay saasi khilaafadiisa ku galaan dabeetana intuu xadiidkii imaamu zuhari laa tashaddu rixaal u daliishaday ayuu halkan amaamuday dabeetana masaajidkan weyn iyo qubada tan iyo waxa kan oo dhan isagaa sameeyey isagoo raba bay yidhaahdeen inaan ibnu zubayr la xoojinin buu sidaasi u galay inankiisiina alwaliid ibnu cabdilmalikna waa uga dambeeyey oo isna waa sii xoojiyey waa sida uu qorayo imaam ibnu kathiir iyo sibt ibn aljawsi fii kitaabi mir'aati zamaan labadubana waxay ka soo naqlinayaan yacquubi fii kitaabihi yacquubigaasi waxa uu qorayaa isagu iyo uu leeyay sakhrada isagaa dhisay qubatu sakhra qubadan weyn ee dahabka u eg isagaa dhisay buu leeyahay ayaamu fitnati cabdillaahi ibnu zubayr soo duduub labadaa nina isdhalay ayaa dhisay masaajidka iyo intan kale masaajidku ini waa intii masaajidkii rasmigaa ahayd inna waa qubada tan ee sakhradu ay ku taallo iyo saaxada u dhaxaysa intoo dhan oo la isku daro ayaa xaram lagu wada tilmaamaa intoo dhan oo la isku daro bay yidhahdeen xaramu masjid alaqsa waa 141,000 oo mitir square bay yidhaahdaan marka intaasoo dhan la isku daro waagii dambaa laba suur loo samayn doonaa siduu mustafa dabaaq fii kitaabihi alqudus uu ku tilmaamayo markii ay dowladda umawiyiintu cahdiyadeedii dambe oo ay daashayba ayaa zilzaal ka dhacay dhulgariir baa dhacay markay 130 hijriyadu maraysay dabeetana masaajidka dhanka bari iyo dhanka galbeedba waa dumay dowladdii umawiyiintiina markaa idiraabaad baa iskaga jiray masaajidkii umawiyiintu waxay ka tageen isagoo labadaa dhinacba ka dunsan waxaa bilaabmay alcahdi alcabaasi abu jacfar almansuur ninkii la odhan jiray oo 141kii hijriyada markay qabsadeen yacnii kadib imaamka ahaa ayaa yimi dadkii baytilmaqdis deganaa waxay ku yidhaahdeen waxaanu rabnaa masaajidkii waa dunsan yahaye inaad dib u dhisto waan dhisayaa buu yidhi waxbaba kale muu samayne qubada iyo albaabadeedii iyo wixii dahabkii ku dhijsanaa iyo fidadii ku dhijsanayd buu ka guray dabeetana iyadii buu ku dhisay masaajidkii buu dib u dhisay haddana dhowr iyo 10 sano kadib 158 markay hijradu maraysay ayaa dhulgariir kale ka dhacay qaybo masaajidkii ka mida baa dumay mar labaad waxaa dhisay almahdi ibnu lmansuur inankiisii abu jacfarkan inankiisii mahdi ahaa ayaa dhisay
oo xoolo badan isagu ku bixiyay bay yidhaahdeenoo si fiican u dhisay taariikhdu haddana markay 216 maraysay baa zilzaal saddexaad ka dhacay bayt almaqdis marar badan buu ka dhici doonaa zilzaalkaas ayaa dhulgariir kale ka dhacay haddana masaajidkii qaybo ka mida baa dumay dib buu u dhisay ma'muun ninkii la odhan jiray 216 baa ma'muun dib u dhisay magaciisana ku qoray awal dee qolada umawiyiinta laakiin taariikhdii muu bedelin bay yidhaahdaan taariikhdii umawiyiintu dhiseen wuu u daayey laakiin isagaa isku qoray magaciisii buu ku qortay dawla alcabaasiya xilligii dambe iyana way daciiftay taariikhdoo dhan waan dul marayaa uun markii ay daciifeen ayaa waxaa masar la gaar noqday axmed ibnu طawluun ninkii la odhan jiray aطuluuniyiin dowladdoodii dabeetana masar markuu gaar ula noqday waa wilaaya goosatay oo ka goosatay khaliifadii ayay u qabsaday falastiinna markuu falastiinna ku darsaday isagaa muddadii طawluuniyiintu ay haysteen 265 ilaa 294 iyagaa xukumayay haddana ikhshiidiyiintii qabsaday masar qabsaday 3,720 ilaa 3,950 iyaguna sidii bay u haysteen bale ikhshiidiyiintu iyagu waxay qaateenba arrin odhanaysa boqorradoo dhan in lagu aaso bayt almaqdis oo boqorradii masar ka talin jiray meydkooda waxa la geyn jiray bayt almaqdis baa lagu aasi jiray 3,950 markay taariikhda hijriga marayso ayaa nimankii faatimiyiinta la odhan jiray galbeedka ka yimaadeen masar bay qabsadeen waa soo dhaafeen shaam bay qabsadeen shaam bay 3,950 iyana ku darsadeen muddo aad u badan ayay nimankaasina ka talinayeen inta badan shiicadu masaaraadka iyo meelaha la tagay waxaa aad bay ugu qurxiyaan oo iyagu ashyaada maadiga aad bay u ilaaliyaan sidaa daraaddeed bayt almaqdis iyo sakhrada iyo waxaasoo dhan aad bay u qurxiyeen oo si fiican bay u dhisdhiseen 407 markay haddana hijriyadu maraysay baa zilzaal xooggani ka dhacay الظاهر الفاطمي نكي لورن جري أو دولة العبيدية كترسن أي أفر بغولية صدح طبعا كي دبور السي هدنا أفر بغولية شنية لباتن كي با مرشان آدمية زلزال كلا كدعي وآدو دميي إساقي هدنا الظاهر الفاطمي با مركلة هدنا السي لكن ظاهر الفاطمي مركل دنباو السيو حق قرباتك إيا حق بريق أبو كسو قابيي iyo arwaqadii qaybo ka midaba imika inta dhisani markaa waa ninkaasi markii uu soo gaabiyey intii uu dhisay ayaa hadda ah inta dayrku ku wanaagsan yahay ee loo yaqaano maxay almasjid alaqsa dhismaha hadda taagani waa dhismaha الظاهر الفاطمي inta uu dhisay siday mawsuuca alfalastiiniya qorayso dawla alcabaasiya oo markan dambe ay xoog badatay salaajiqadii ayaa qoladan riixiday oo shaam dib uga qabsatay dabeetana khudbaddiibaa khaliifka loo soo celiyey haddana dhexdooday iska dildileen nimankii salaajiqada ahaa faatimiyiintii baa ku soo noqday 489 bay dib u qabsadeen nin la yidhaahdo iftikhaaru dawla ayaa markaa maamulo looga dhigay 3 sannadood markuu iftikhaarkaasi hayay 492 hijriyada ama 1,990 miilaadiyada markay maraysay ayay qabsadeen nimanka saliibiyiinta ah ayaa masiixiyiintu qabsadeen waxaa markaa laga bilaabmaysa taariikhda kristanka iyo bayt almaqdis iyo soo noqoshadoodii dambe shaam dhulka la yidhaahdaa waxay noqdeen dowlado yaryar oo muslima oo iyagu iswada haya dowladdii salaajiqadee turkida ahaydna way hoos bay u dhacday magaalo kasta waxaa gaar u qabsaday niman ataabika la yidhaahdo ataabiku waa alab alwasiy ayuu af turkiga ku yihi yacni waxa weeyaan nin le anigaa lay dardaarmay meesha tan oo ninba goob yar buu goostay markay duwalkaa yaryari isdilayaan midbaka kale ayuu xusuuntiisa manjaniiqa madaaficda la dhici jiray oo dumin jiray iyadoo dhanka kalena dagaalkii
masiixiyiintu uu ka socdo dagaalkii saliibiyiintu isaga u socdo waa waqtiga ay samaysmeen saddexdii dawladood ee masiixiga ahaa ee shaam laga dhiso mid waxaa laga dhisay meesha la yidhaahdo antakiya 491 hijriga ama 1098 markay maraysay miilaadigu waa meel iminka turkiga ku taalla kadibna waxaa la dhisay imaaratu ruha iyana turkiga ku taalla waxaa kaloo la dhisay iyana mamlakatu orshalim 492 kaan sheegayna waxay qabsadeen bayt al-maqdis halkaa waxaa ka bilaabmay dagaalada caanka ee loo yaqaano xuruubu saliibiya xuruubu saliibiya waa dagaallo kristankii yurub joogay ay muslimiinta ku soo qaadeen waa dagaallo socday 195 sannadood bay socdeen waa dagaallo ay u weynaayeen 8 xamlo ama 8 dagaal ayay soo qaadeen nimankaasi kristanka ah iyo kuwa yaryaroo iska socday dagaalkaasi wuxuu bilaabmay baa la yidhaahdaa 1095kii markii boobkii la odhan jiray orban boob la yidhahda orban athani baa la yidhaahdaa ayaa mu'tamar la isugu yimi faransiiska Clermont magaalo la yidhaahdo masiixiyiinta oo dhan oo isugu yimi ayuu wacdi ka jeediyey boobkii ugu weynaa kiniisadda kaatoliga ahi dabeetana wuxuu tirtir siiyey maanta inay tahay maalintii yurub intay midowdo ay bayt al-maqdis oo ah halkii ilaahoodu iyagu say sheeganayeen uu da ku dhashay ee lagu dilay ee maryamo lagu dilay ee maryamo ku dhimatay ee caynkana kiniisaadkoodii ku yaalleen inay dib u soo xoreeyaan maalintaasi khudbadaasi uu ninkaasi jeediyey yurub oo dhan bay gaadhay yurub ha gaadhee waxaa bilaabmay in wacdigiisii la qaado xoog loo faafiyo oo yurub oo dhan lagu faafiyo wacdiga marka uu bilaabmay 8 dagaal waxay ahaayeen 8 dagaal oo munadama yani 8 dagaal oo boqorradii yurub hogaaminayaan oo wadaadadoodii la socdaan oo ciidamo tababaranayeen laakiin waxa ka horreeyay xamaasadii markii ay kacdayba waxa jira wadaadda inta iska qiiroodeen shucuubtii beeralayda ha kiciyo oo yidhi ina dhaqaajiya nimanka sugumayno wax wadwada ah waxa soo baxay falaaxiintii faransiiska iyo jarmalka beeralaydoodii oo uu wato nin la yidhaahdo walter al-muflis walterkii caydha ahaa iyo nin raahiboo la yidhaahdo butros الnaasik labadaasaa watay laakiin labada tani maadaama ay dadkan xamaaso geliyeen waxay ka bilaabeen intaynan muslimkaba gaadhin kuwan yuhuudda yurub jooga horta aan sii marino webiga rhine iyo agagaarkiisa wixii yuhuud joogay bay xaaqeen kadibna dad caamo iska ordayay ahaayeen kiniisaddii yurubta bari ayay soo dhex mareenoo iyana isku dayeen inay boobaan majariyiinta iyo bulgaariyaniska ayaaba la dagaalamoo kala firfirdhiyey qaybihii ugu badnaa waxay soo gaadheen markaa istanbul oo markaa bizantiyiinta dowladdooda ay ka talinayso boqorkii istanbul haystay alexius la odhan jiray ayaa wuxuu ka shakiyey nimankan iska socday wax walba boobayaa waddankiisana inay rabshaan waddaha loo furo buu yidhi horaha u gaadhaan baytalmaqdiskay sheegayaan horuu isu soo dhaafiyey laakiin addawla saljuuqiyo markaa waxoogaa iska ladan baa meel dhexa la iska helay 3 bay gumaadeen waayo may ahayn askar tababaran hub fiicanna may sidanin niman beeralay oo la xamaasadeeyo wadaad hogaaminayo oo yidhi meel baynu soo furanaynaa bay ahaayeen intaa kadib waxaa bilaabmay dagaalkii koowaad alxamla saliibiya lula oo uu hogaaminayo raymond الraabic iyo kodofari iyo bohmand iyo tankard waa 4 nin oo intooda badani dooqi ahaayeen bohmand isagoo maxbuusay muslimiintu markii dambe soo qaban doonaan laakiin waa ninkii antakiya haysan jiray tankrad waa normandiyiintii waa yurubta waqooyi nimankii intay ka soo duuleen faransiiska iyo dhulkan qaybo ka mida qabsaday oo markii dambe boqorka faransiisku iska muslaxay dabeetana gobol dhan bay degaan oo normandiyiin la yidhaahdo
gobolka ay degaan iyo dadkoodii baa isdhex galay markii dambena Siqiliya iyo meelaha kan waa nimankii maamuli jiray waa Vikingka nimanka la yiraahdo marka laga sheekaynayo taariikhda Yurubka waqooyi Tancred ninka la yiraahdo iyo Godofredo waa Faransiis gobolada Faransiiska qayb ka mid ah buu xukumayay Raymond kanina waa Raymond kii afraad ka yiraahdaan Raymond de Govery ninka la yiraahdo ala kulli xal waa niman dhanna wadaada ka ahaa dhanna boqorra ka ahaa iyo meel haystay afartan nin oo hogaaminaya ciidamada ayaa soo galay 489 taariikhdu markay maraysay ayay waxay isu keeneen nimankaasi ciidamada Yurub oo ka kooban 19 jinsiyadood 19 jinsiyadood oo Yurub ah ayay 70,000 oo askari ka keeneen Edward Gibbon taariikhyahanka Ingiriiska Edward la yiraahdo wuxuu leeyahay dadkay wateen dad aad u jaahiliina ayay haayeen Antakiyay go'doomiyeen dabeetana waa qabsadeen Antakiya markay ka qabsadeen Saljuuqiyiintii dumar iyo caruur iyo cid walba waa mariyeen waa soo dhaafeen kadibna waxay ka qabsadeen Faatimiyiintii meesha la yiraahdo Bayt al-Maqdis waa intay muslimku joogeen markii koowaad ee ay gasho gacanta masiixiyiinta Bayt al-Maqdis waa 1999 taariikhyahanka Ingiriiska la yiraahdo Stephen Runciman taariikhu qorayo tiro badan leh qayb ka mid ah waxa soo naqlinaya Gustav Le Bon kitaabkiisa Hadarat al-Arab wuxuu leeyahay saliibiyiintu markay ay meeshan qabsadeen magaaladay ku faafeen iyo masaajidii wixii ka soo horbaxay ee rag iyo dumar iyo caruur midnaba may kala reebin buu yiri dilku ilaa habeenkii buu socday buu yiri may dadku ku nabadgelin buu leeyahay calankii Tancred waa ninkii Romandiska ahaa Vikingka qabiilka ka soo jeeday ninka kani dadkii ku soo yaacay qayb ka mid ah ayuu calankiisa siiyay waxay cabaar baa la istilay ammaan bay dalbadeen in la nabadgeliyo waan idin nabadgelinayaa buu yidhi calankiisii buu u dhiibay xataa kuwaa lama dayn bay yidhaahdeen ee kuwaana waa la xaaqay masaajidka kuwii galay waa la laayay 15 Juulaay 1999 oo ku beegan 23 Shabcaan 492 ayay meeshaasi si fiican u qabsadeen masaajidkay galeen koox iyaga ka midi wixii ay masaajidka ugu tageen oo dhan bay laayeen Raymond de Gilkas oo Arbon ninka ka yimiya waxa uu yiri waxaan soo eegayaa meeshii kiniisadii Maryam laakiin meydkii meel uu ka maraba waay waxay tilmaamaan magaalada Qudus shawaaricdeedii waxa daadsanaa madaxyadad may oran madaxyadada waxay iyagu leeyihiin ru'uusil arab wa aydihim wa arjuluhum ba magaalada daadsanayd bay leeyihiin qof maad meel mari karin bay leeyihiin ilaa iyo meyd baad ka dul dhacaysay waxaasina yani markay iyagu sifaynayaan mid iyaga ka mid ah Godfrey de Boulogne waxa uu ku tilmaamayaa yani markuu ka warramayo runtii si غير caadi ah uu uga warramayaa markaan soo koobo inta aan idin akhriyay mariyeen waa waxay iyagu buwaagtooda ku qoreen haddaynu kuwa muslimiinta tagno ibn al-Athir oo masaladan ka warramaya wuxuu leeyahay ninkii Toch Arab Arsalan loo oran jiray iyo groupkoodii markay ay daciifeen ee Faatimiyiintu meesha ka qabsatay ee ay nimankaasi soo galeen fursaday muslimiintu isku mashquulsanaayeen bay ka faa'iideysteen buu leeyahay markaas ay ka qabsadeen kadibna Bayt al-Maqdis bay 40 maalmood ama dhowr iyo 40 maalmood go'doomin ku hayeen kadib bay qabsadeen toddobaad bay wixii ka soo horbaxa bay leynayeen buu leeyahay oo qof kasto ay arkaan ay laayeen markii dambe ammaan bay dad siiyeen dadka ammaanka siiyeen bay haddana mariyeen masaajidka gudihiisa qura buu leeyahay waxa lagu dilay in ka badan 70,000 oo qof waa dhacdooyinka ugu caansan ee bini aadam la xaaqo ayaa meeshaasi ka dhacay 90kii sannadood ee maalinta ka dambeeyay Bayt al-Maqdis waxay ku jirtay gacanta Kiristaanka
maalintaasaa la qabsaday 9 sannadood oo ka dambeeyey bay gacantooda ku jirtay maanta derisku halkaa ku joogo asalaamu calaykum waraxmat ullah